maalmihii ugu dambeeyay waxaa si aad u kacsanaa xaaladda Soomaalida South Africa ay soo wajahday nolol ka duwan midii ay ku noolaayeen ha noqdaan magaalooyinka dalkani kuwa ka wada siman ugaarsiga iyo dilalka arxan darrada ah balse xasuusta Soomaalida ma aan mid marnaba ka go'aysa dilkii marxuum Cabdirashiid Axmed Good oo ay si aan horey loo arag ugu qarijiyeen magaalada Port Elizabeth. baaritaannu telefishinka caalamiga ee Somali Channel sameeyay ayuu ku wareystay ehladii iyo walaalihii la dhashay marxuumka oo uu midkood goobjoog u ahaa dhibkii dhacayay. waa kan isagoo nooga warbixinaya sidii ay wax u dhaceen xogna naga siinaya qaabkii walaalkii loo dilay iyo waxa sababay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waxa la yiraahdaa Ciise Axmed Good waxaan ahay Cabdirashiid Axmed Good oo ahaa marxuumkii la dilay walaalkiisa uga ka weyn ayaan ahay. waxa weey meel la yiraahdo Boysenberg tuulo la yiraahdo ka tirsan Port Elizabeth badan meeshan aad aragtaana baan dukaan ku lahayn dukaankii waa la boobay maalinkii 29 bishii hore oo bishanaad ayaa la boobay goor galaba dukaanka waan iskaga cararnay aniga iyo marxuumkaas iyo nin kale oo yar kaleba u joogno walaalanahay saddex walaalaan ku joognay waan iska cararnay subaxdii dambe ayaan ku soo laabanay dukaankii oo dhan malqab soo fiiriyay say wax u dhacaan gaari yar oo nin kale watay waan soo qaadanay dukaankii waxaan ugu imaanay wixii kale oo dhan lagu gurto laba fridge bataal oo taalan ugu imaanay meesha laga tagay labadii fridge ayay hawa naga gashoon damacnay inaan qaadano gaarigii yaraa waan iska dirnay waxaan dhahnay inuu noo soo qaad gaari weyn oo ku qaadano fridge-yada ninkii gaariga waday ninkii uu naga tagay muddo yar markuu naga sii maqnaa hadda qiyaasi karin daqiiqadaadii aan sabab badnayn waa nala soo weeraray lagu soo weeraray meesha annaga joognaa kulley saad macnaha la ogyahay bas way iska jirtay wadanka soo weerartay masa yaga soo weeraray ummad tuuga lama odhan karo ummadii South Africaana soo weerartay oo ummadii kulley aan kala hadhino deegaanka ah kulley sida la ogyahay way iska jiray South Africa way ka jirtay boobka iyo dhaca iyo dilka tuugadu wax dilayso oo jirtay laakiin oo muxuu ahaa xoolo lagu dilayo guri loo dilayo tuugada waxa dhacay wax ku dili jireen boobkuna wuu iska jiray inta dadka la boobo dukaamada la boobo muxuu ahaa dadka lama leen jirin Soomaaliinta badan marka ma aanan ku fikirin in anagana la raadsanayo ama anaga nafteena la soo weerarayo marka aan meesha ku harayna ama firiishada aan rabnayna qaadano adii ummadii wayna soo weerartay markaan aragnay ayagoo lagu soo yaacayo waan guriga galay dukaankii aan galay waan isku soo xirnay dukaankii markaan isku soo xirnay dukaankii waxa lagu daray jabin la soo jabiyo iyo dab lagu dukaankii la gubay lagu tuuray laba iridood lahaa dukaanka labadii iridood baa laga soo gubay dab lagu soo gubay adii markii dambe waan dhex jeednay iyagaan dhex oradnay markaan hay weynay dabkii iyo wixii baan iyaga dhex oradnay nafti la dhex xarnay waan eeriyadeen oo nacarsadeen saddexdeedii waa oradnay marka ninkan marxuumkan Allah u naxariistay dhintay uu naga lagu horeeyay isagoo xogaa uu naga horeeyay aniga yarka kale walaalkay guri baan galay guri haddana ku kala sii galnay adii intii anaga guriga galgalaynay ninkii marxuumka meel cidla ka heleen sidii ku dileen marxuumka marka dadka qaar siyaabo kala duwan oo kala macneysteen bal sida adigu ka warhaysay iyo jirkiisa sida aad ku aragtay qaab sidee loo dilaas dhigi kartaa wallaahi walaalo kama sheekayn karo waayo haddii aan ka sheekayno saas loo dilo xogaa waxaan dareemayaa xanuun fara badan baan dareemayaa laakiin qaabka loo dilay qaab ma aha bini'aadam kulley xayawaan oo kale siisa loo dilo ma ku tilmaami karo waxaan lagu dilin ma jirin dhowle dhagax baa lagu dilay qof waliba wuxuu heli karay buu ku dilay jirkiisana meel fiiyo maysan lahayn wallaahi horta waa baxda saxaafadda aad baan ugu baahnayn waayo arrintaas inaan uga mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed ee ka xanuunsatay dhibka aan moodayno marka hore intayada meesha joognaa ama intayada la dhalatay eelada inaan xanuun ka qabno ummadda Soomaaliyeed muxuu ahaa hawshaas nagu taageertay aad iyo aad baan walaal u mahadcelinayaa dhammaan dawladda federaalka madaxdeeda iyo muxuu ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogtaba iyo TV telefishinada af Soomaaliga ee kamidiyay First TV Somali Channel TV-yada Soomaaliga oo dhan dhammaantood waan u mahadcelinayaa xanuunka faraha badan ee lala qaybsaday waliba ay naga sii badbadiyeen waayo waxaan markii hore waxaan moodayay muxuu ahaa xanuun waan kaliya la bukay iyo intii macnaha meesha joogtay
laakiin waan ka bogsaday markaan arko ummaddii Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan yar iyo weyn rag iyo dumar meel kasta ka muxuu arrintan ka sameynaya waan bogsaday aad iyo aad baan arrintaa u dhiray ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay ilaahay muxuu ahaa midnimo ilaahay waxaan ka baryaa inay ummadda Soomaaliyeed midowdo haye bal adigoo nooga faaloonay dhacdeen xanuunka badan ee ka dhacday magaalada hadda ku sugnaay BE bal nooga faalo iyo waxaad u tahay marxuumka Allah naxariiste الله نحرسته مرحوم كوحنا هاي أنا وأديركي مرحوم كان مجلس هو عبد الرشيد أحمد قط مجا الصحة واكاس الويبسايت ده قار كود يوربعين توحنا كم قلينا عبد الناصر مركب مجا الصحة ده الصومالية هاي وبعدين runtii dhacdadaas xanuunka badan hore waxa uga soo sheekay walaalkii anigu waxba ku noqon maayo dadka Soomaaliyeed indhahooda ay ku wada fiirsadeen isagana uguma horeeyay uguma dambaynayo dhacdooyin badan oo ka horeeyay baa jiro kuwaas oo kala kuwa ka dambeeyay baa jiro sidaas oo kala u dhacay inta wiilkii ka dambeysay haddana way ku socotaa oo ilaa xalay iyo shalay dad badan oo hadda dhowr iyo 10 qof xiran dhibaataduna wali dadka Soomaalida aad bay uga socotaa waxaan u dirayaa dadka Soomaaliyeed arrinkan inay u arkaan arrin mideeya wiilkan waa mideeya waa arrin maaragtay dadka Soomaaliyeed dhowr iyo 10 sano u dambeysay South Africa arrinkan ku socday dawlad la'aantii darteed dawladda Soomaaliya baaq baan u dirayaa runtii arrinkan sida uga gilgilatay sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul baarlamaanka iyo duqa magaalada xamar tarsan sidii adkeyd uga hadlay barnaamijka uu soo abaabulay haddana uu ballamiyay barnaamijyo kale inuu ka dhici doonaan magaalada xamar 17 degmo si kastaba ha ahaatee maamulka telefishinka caalamiga Somali Channel ayaa ku raad jooga baaritaano dhowr ah ku saabsan dilkii marxuum Cabdirashiid Axmed Good sidoo kale boobkii dhawaan ka dhacay magaalada Port Elizabeth ayaana muuqaalo dhowr ah idinkaga soo gudbin doonaa waa Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale Somali Channel Port Elizabeth